kooxda maleeshiyada Xuutiyiinta ee Iran taageerta ayaa weeraray markab ganacsi oo ka gudbayay xeebaha koonfureed ee badda Cas. afayeen u hadlay isbahaysiga Carbeed ee Sacuudigu hogaamiye ee dagaalka kula jira Xuutiyiinta Yemen ayaa tilmaamay in dooni nooca aan la wadin Xuutiyiintu ay ku weerareen markabkaasi isagoo xusay inay duqeeyeen oo burburiyeen doonida weerarka Xuutiyiintu ay ku fuliyeen. walow afayeenka u hadlay isbahaysiga Sacuudigu hogaamiye uu ka gaabsaday inuu ka hadlo qasaaraha markabkaasi soo gaaray iyo wadanka laga leeyahay. dhanka kale war ka soo baxay kooxda Xuutiyiinta ee Yemen ka dagaalama ayaa lagu sheegay inay diyaarad nooca daroonka ku weerareen garoon diyaaradeed iyo xarun koronto oo ku yaala magaalada Abha ee koonfurta boqortooyada Sacuudiga. walow ciidamada difaaca cirka Sacuudigu ay sheegeen inay dhulka soo dhigeen diyaaradda daroonka kadib markii ay arkeen iyadoo dul maraysa hawada garoonka diyaaradaha ee magaalada Abha. war laga baahiyay telefishinka boqortooyada ayaa lagu xusay in garoonka diyaaradaha magaalada Abha uu sidii caadiga ahayd u shaqaynayo. isbahaysiga uu hogaamiye Sacuudigu ayaa dagaal xoogan kula jira kooxda Xuutiyiinta oo gacan saar leh dawladda Iran kana dagaalama wadanka Yemen. dhawaan ayay ahayd markii isbahaysiga uu hogaamiye Sacuudigu ay ka baxeen ciidamadii Imaaraadka Carabta ka joogay wadanka Yemen. dawladda Imaaraadka Carabtuna ay sheegtay inay ciidamadii Yemen ka joogay dib uga baxayso ayna ku noqonayaan wadankooda.